asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aadi wada salaamaya dhammaanba ummadda reer somaliland meelay joogtaba guud ahaan gaar ahaana xisbiyada isbaahaysiga mucaaradka. marka ugu horreysa waxaan hambaliyo iyo tahniyad uga dirayaa iyo farxad iyo reynrayn xafladda caawa lagu qabanayo ee hambaliyada ah magaalada hargeysa ee madaxdii mucaaradku isugu timi. mar labaadka waxaan si gaara u tahniyadeynayaa waan u hambaliyeynayaa guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada cabdirasaaq khaliife axmed giire oo guddoomiye ku-xigeenka koobaad ah iyo cali xaamid oo guddoomiye ku-xigeenka labaad ah. intaa ka bacdi waxaa inoo dhacay farxad iyo guul. qabyo waa halkeedii way bilaabantay. xidigga uu ka fooraraa qoladan. waxaan idin leeyahay haddii alla idmo dariiq dheer baynu iminka dabada ka soo qabsanay hor ka soo qabsanay baan u jeedaa. buur baynu dhakada ka koraynaa oon doonaynaa inaynu ka daadegno. waxa aan leeyahay ummadda isbahaysiga ee xisbiyadaa ku bahoobay dagaalkii waynoo kow muu dhammaanin. kursigaynu ku soconnaa, cadaalad baynu doonaynaa, sinaan baynu doonaynaa. waxaa loo baahan yahay waxyaabo badan. dagaal aan kala go' lahayn hadday saxaafad tahay iyo hadday dhaqaalo tahay labadaba, iyo guubaabo runsheeg dadka in xaqa lagu soo hago si aynu kursiga u qabsanno. wakti inooma hadhin. wax sanad iyo 7 bilood mise sanad iyo 5 bilood baynoo hadhay intii madaxtooyada kole dib baa loo dhigayaa. dhammaan qurba joogga iyo daljoogga, ganacsatada, siyaasiyiinta, dhallinyarada, haweenka waxaa laynaga doonayaa inaynu waxyaabo badan saxaafadda hadday tahay ku dagaalanno, dhaqaalo ku dagaalanno, ficil ku dagaalanno, oo aynu duulkan meesha jooga masaxno ciribtooda sidaa u gurno aynu doonaynaa. waxaynu doonaynaa in aynu ka jiba keenno oo sidaynu uga keennay guddoomiyihii laysku haystay iyo dagaalka loo soo gelayay aynu ugu guulaysanay golaha wakiilada cusub cabdirasaaq khaliife iyo cali xaamid iyo giire oo saddexduba mucaaradka yihiin. waxaan leeyahay waa saddexda beeloodoo ugu waaweyn. saddexdaa nin halkay ka taagan yihin. waa in aynu ka jiba keenno. waxaa intaa ay raaca dhaqaalaa nanaga rabaa. $1 baa ugu yaro qofkii hadduu bishii $1 dhigo inteebaa bishii noqonaysaa baa u malaynaysaa. dagaal baa laynagula jiraa adag. dee inaanu u babac dhigno wey oo ka jiba keenno oo madaxoodaba soo celino. waxyaabaha cajiibka ah bal dad qabyaalad ku dhaqmaaya baa ka kale le maxaad qabyaaladda u samaynaysaa. oo waxyaabaa laynaga arkaa inaynu ka jawaabeen haddaynu isbahaysiga nahay. inta xildhibaanada ku jirta isbahaysiga ee u codaysay isbahaysiga inay daacadii siyaasaad ku garanaysa. inta xildhibaan ay ka kooban yihiin waa dad
isbahaysiga oo codaysay 42 kuwii codeeyeyba waa dad daacad ah oo aan qabyaalad ku jirin kana jawaabayna waxyaabaha qaarkood ay ka jawaabeen iyo halka la isla marayo marka waxaan idin leeyahay ummad yahay dagaal cusub oo maanta inoo bilaabmaynu gelaynaa sidaas awgeed life waa in laysu soo galaa saxaafadda laysu soo galaa oo qoraallada la badiyaa websaytada nin walaba websaytekaad wax ku qori karto aad ku qorto ka jawaabno waxyaabaha ay ka hadlayaan ee khaladaadka ah ayuu koo qabyaalad meel u wada maray bay guruujo ku leeyihin qabyaalad baad ku baydha iyo miicaad dulqaadka badani ma wanaagsana waa nacasnimo qaar waa heebaduu waayo waxaabay u arkeen dulqaadkii ayaku iska wataan oo wax walba ay samaysan karaan berito haddii alla idmo waxaa gelaya oo sabti ah shirkii ugu horreeyey ay fadhiisanayaan golihii cusub ee xildhibaanada wakiiladu waa inaynu ku dagaalanaa sharciyada cusub oonu wada samayno kuwii horena dib u saxaan ilaahay garabkood ha galeen golihii deegaanada waynu wada haysanaa cabdikariim axmed mooge maantuu waddadii ugu horreysa bilaabay magaalooyinkiina waa lagu wada dayday berbere ku dayatay bowrabe ku dayatay burca ku dayatay meel walba ku dayatay xildhibaanadeena cusub ee dhammaan aynu dooranay berbere mayo 5 kale magaalo weyn bay naga haysanaa waa inay ummadda wax tusaan si dadkani ay indhahooda wax u arkaan cidda wax u qabanaysa hargeysa durooba 4 meelood marka loo qaybiyo 3 meelood baa la nadiifiyey macadooxii dadku way ka daayeen xitaa wax xashiishka ay ku soo gurayeen laamiyadii bay bilaabeen imika oo maanta la bilaaba dadka in ummadda wax la tuso weeye dagaalku waa fara badan yihin maaha ina aamustaan waa ina dhaqaalaha bixisaan oo saxaafadda gashaan oo meel walba gashaan qurba joogga waa inaynu caalamka wax ka dhaadhicinaa maamulkan wuxuu yahay waa inaynu ka dhaadhicinaa waa in la raadiyaa ictiraafka somalilan waynu doonnaa ictiraafka somalilan waa inaynu doonnaa oo meel walba u galnaa nin walaba dalka aad joogto waa inaynu ummadda u sheegnaa inay been tahay wax dadka laga dhaadhicinaya lagu maalaya khiyaaliga ah ee khuraafaadka la leeyahay soomaaliya ku socdaan ee dadka beenta loo sheegayo inkastoo dadka imika beenta ba isku ogaado dee waa idinka arkayo doorashadii 2 golob wax sida u dhacday sidaas awgeed anigoo idin wada salaamaya dagaal weyn oo kow ninkii hadhay yeelkadiisa hagoog xumo yeelkadiisa biidhaqaato yeelkadiisa dabaxaabe yeelkadiisa midna waxba kaa qaadi maayo ma hungoodo daacade beenina meel ma gaadho wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu